senator Muuse Suudi Yalaxow oo xubinka aqalka sare ayaa ka jawaabay hadal maanta ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yariso laakiin ay u soo dhiibeen Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo taas oo ahayd in dhulka hadda uu degan yahay uu ka guuro maadaama uu dhulku yahay hanti dawladdu leedahay. Muuse ayaa dhulka uu hadda degan yahay waxa hore si sharci ah ugu wareejisay dawladii Cabdullaahi Yuusuf kadib markii Muuse uu ku wareejiyay hub lagu qiyaasay $2 milyan laakiin dawladii xilliga jirtay awoodi weeday in ay lacagtu u celiso Muuse ayaa lacagtaas waxa loogu bedelay xarun uu hore u haysan jiray xilligaasi. Muuse oo ka jawaabay hadalka ka soo yeeray Engineer Yariso ayaa yiri kuwa aqligooda siiyay in ay hantideedu damcaan taariikhda war uma hayaan waase la isbaran doonaa. Muuse ayaa sheegay in ay jirin cid uu ka yeelayo in hantidiisa la boobo oo isaga laga qaado laakiin dad kale lagu wareejiyo. sida uu sheegay mid ka mid ah dadka ku ganacsada magaalada Muqdisho dawladda Farmaajo waxa ay ku jirtaa buu yiri argoosi ay ku bartilmaameedsanayso qabaa'ilo gaar ah. Xaaji Muuse ayaa sheegay in uu u diyaar garoobay in uu difaacdo hantidiisa haddii ay dawladda diido in ay ku dhaqanto sharciga dalka. dhanka kale warar hoose oo aan helin ayaa waxa ay sheegayaan madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu codsaday in uu la kulmo senator Muuse Suudi Yalaxow. Farmaajo ayaa u diray Xaaji Muuse koox senatare iyo ganacsade isugu jira isagoo ka codsaday in ay ku soo qanciyaan in uu la kulmo madaxweynaha. Xaaji Muuse ayaa u sheegay dadkii loo soo diray in uusan waxba ka qabin in ay wada kulmaan isaga iyo Farmaajo laakiin waxa uu ku xiray shuruud la kulanka Farmaajo. Xaaji Muuse ayaa waxa uu weydiiyay dadkii loo soo diray in ay damiin ka noqon karaan in wixii lagu heshiiyo uu Farmaajo fulin doono. dadkii fariinta u keenay ayaa dhamaantood waxa ay ka gaabsadeen in ay qaadaan damiin ah in Farmaajo uu fulin doono heshiiska ka soo baxay wada hadalka. waxaa nasiib xumaa in dadkii Farmaajo uu soo dirsaday ayna xitaa damiin ka noqon karin qofka ayaga soo wakiishay. Xaaji Muuse ayaa waxa uu sheegay dadkii fariinta u keenay in uu yahay qof nabadeed waqtigiisa uu hadda u geliyo nabadeen iyo dawladnimada in la taageero. waxa uu yiri askar iyo ciidan aan arko waxa ay ugu dambeysay mar aan dhaweyn waxaan rabaa waa sharci in lagu kala baxo oo la isticmaalo maxkamad iyo dastuur. ma aqaan waxa uu Farmaajo u diidan yahay in sharci lagu kala baxo. xaajiga ayaa ku daray haddii sharciga la diido waa la iska celinayaa isaga ayaana guran doono miraha uu abuurto. 30 sano waxaan u dagaalamaynay waxa ay ahayd cadaalad haddii meeshii aan ka nimid la isku day in lagu celiyo waa la iska celinaa dhulkan anaga u hareyno ee ogaada ayuu yiri. Xaaji Muuse ayaa ku xiray shuruudo la kulanka Farmaajo taas oo ah in sida kaliya uu kula kulmayo ay tahay iyadoo oo beesha uu ka dhashay Farmaajo ee Mariixaan ay goobjoog ka noqdaan wada hadalka labada dhinac. Xaaji Muuse ayaa yiri haddii sharci dawlad uusan ogoleen in lagu kala baxo waxa kaliya ee noo furan waa in lagu kala baxo dhaqanka qabiilka waa haddii qorshaha uu yahay si nabad ah wax lagu xaliyo. Farmaajo ayaa caawa loo geeyay shuruudaha uu soo jeediyay Xaaji Muuse Suudi Yalaxow waxaana laga sugayaa jawaab ah in uu rabo in sharci lagu kala baxo oo xaajiga maxkamad la geeyo iyo in beesha Mariixaan ay wakiil ka noqdaan wiilkooda iyo in dagaal lagu kala baxo. sida loo xaqiijiyay warbaahinta Xaaji Muuse ayaa ciidankiisa ay ku jiraan heegan ilaa xal looga helo cagajugleynta ka soo yeertay madaxweyne Farmaajo.